وسلامتين دمان أصحابته مشان أن حلو والباقو كلنا waxaan doonaynaa insha Allah halkan inaan ku falanqeyno gabayga Gayaan qaybtii saddexaad qaybtii koowaad iyo tii labaad oo soo aragnay kan baa maanta insha Allah miiska sagana inoo saaran gabayga qaybtii saddexaad iyo wixii mataqaanay laga kulmay ama ku jiro haduu dil qaf noqon lahaa khalad noqon lahaa iyo hadii hadal qadaf uu ku jiro intaba marka intii aan ka gaadhno insha Allah halkan aan ka falanqeyn doona tii abwaanka ila joogo oo asna barnaamijka qaybka ah وكاشو واد ماسن تahay والله inagu xirana salaamaya meel joogaanba waxaan leeyahay soo dhawaada oo daawashadiina iyo dhiirigelintiin iyo commentigiina iyo alaabtiin halkaas ka wata gabayga Gayaan qaybta koowaad iyo labaad aan idin la wadaagnay qaybtiisa saddexaad oo soo qaaday in la yiraahdo Xasan Qowdhan ha sax iyo halkan u fadhinaa inaan maanta bal isla aragno ko saan idin sheegnayna gabayga wixii uu khaladaad ku jiray idil qaafa iyo erayadii lagu bilaabay kuwa lagu soo xiray sax baan ka gaarnaa inaan soo qaadano sax abwaan Xasan Qowdhan erayadii ku bilaabay ayaan eegaynaa ko oo wuxuu yiri iyo meesha ku soo xirayba haye ko ma korino bilaw waxa uu ku bilaabay wuxuu yiri badray gabayga aad tiri badray ma kuwan ma badri way tiha badray gabayga aad tiri waana beegsaday ha ko barbaartii dalko idil dhamaan taa umay bogini ha marka ka uu yar dhaliilaya iyada gabadhii uu dhaliil kala dulacay ha wuxuu yiri barbaartii dalko idil dhamaan taa yani taa umay bogini ha bir iyo xadiid ayuu nagu noqdiyo jac iyo baruudi ama jac markii la fiiriyo dhan laga fiiriyo ha way noqon kartaa marka iyada halkii gabadha ay joogtay ko barbaar iyo rag baa ku nool haye markii inta ka dhaxbaxdo ee dhahdo aniga hawl kala leeyahay baa matana xidid jira ha iyaga laftooda xaq bay inay maseeraan ko ay hadlaan oo dhahdaan xagida ku wada bari xadiid uu nagu noqday ha inaan horta ku saxan yahay ya jaci baruud hay waxay la yaamay ma noqotay ama kaak ko taasi oo ku tusinayso ha gabadhii inay ka weeday Gayaankaada ay ka shukaansato markii meesha ay joogtay wariya ilaahi ko taas markii uu ka dagaalgalaya halkaas ka dagaalsan yahay ko inta iyada ha ani ahaantay ha inuu ku saxan yahay baan qabaa bad qabtaa ha horta waayo wuxuu soo riday marka iyada in dhibaato ay ku qabaan in gabadhii iyaga la joogto marka iyada ay meel kale u qaltaagto ko marka guur horto maxaa nasiib way iyo maxaa dhahaa iyo qof Ilaahay ugu talagalay u galiyo wasaas laakiin gabadhu lafteeda marka iyada ama aysan weynin barbaarta halka joogtay wasaas hore aan u sheegno waxa way tijaabo in ay jirto suugaan gabayga dad inay ka nool yihiin inay fiirsay ahayd ko laakiin ninkan baa kamid maanta suugaanta kamid dadkii hadda gabadha mataqaanay qabsanayo kuna hal qabsanay in halkii uu joogay ay jac iyo baruud ay ku noqotay ma garad taasi waa fikirkaaga waa tayda iyo fikir dad badan ku raacsan sidoo kale horta waa mido yani muxuu ahaa raggu dhanka dumarka lagama soo maro sax waadan wuxuu yiri warniyo miyaadan ilaahay wuxuu yiri miyaadan ilaahay yaqaan ahayn marka xagga dumarka iga marayso sax ma garad si walba uu yahay ninka ragga waxa la yiraahdaa si walba uu fulay yahay xitaa isagoo qof dumar la socda hadda isku tasaawato mala gaadaa meesha ku galay kaw ka siinaya sidoo kale haday imaato inuu gabar soo dhacsado tihaayo uu dagaalgalay tarkeed uu halgamaya aad weyn marka waxaan ula jeedaa abwaankan Xasan muxuu ahaa Qowdhan wasa sheegtay difaac dhanka gabadha soo ku soo ceshan lahaay waxaas ugu galay horta galay waana silsilad markii la yiraahdo nin walba fikirkiisa inuu ka hadlo loo furay loo furayba hal maada sameeyo ku jirto haye oo adigu wax kale ma ka dareentay oo isbedel hadda ha kullay gabay markii gabadha bilaabaysay ha gabay ku bilowday ko ninkan badray uu ka soo qaatayo ba uu ku bilaabay yaa wariga daleetahay haye halka iyada marka hay oga isdawmar baa dhacay soo ma garan يعني قينونك halka gabayga Gayaan ha garan maray gabaygu magaciisa Gayaan waa gabadhu ay ku bilowday xarafka ga xarafka ga la gaab ma aho waa xaraf aad u laandheeray weeyaan marka abwaan Xasan waa ka leexday kullaba yani qaafiyadi yani waxaan ka wadaa eraygi ku socday uu ku miisaana ama ku magacaawna gabayga waa ka leexday xaraf kale ayuu ku bilowday qaatay
intaan ka aragnayna dee dilqaaf kale hadda ma jirin kumaanan arag laakiin de taasaa lafteeda waxay tahaybo taa laftirkeeda yani xoogaa waxaa la dhihi karaa dee abwaanintu isku mid ma aha hadda erayo qaara waxaa jiro abwaan ku gabyaaba ay yar tahay sida ereyga ya oo kale markii la yidhaahdo aad bu laangaab iyo ho waxaa la yidhahdaa abwaan ka tegey ba wax ka sameeyo sax laakiin wixii kasoo haray inta badan xarfi waa laandheero sababta uga leexday kol laba dee garan mayno laga yaabo inay xoogaa dee ga-da ku yar adkaatay oo muxuu ahaa laga yaabo laga yaabo ha muxuu sii raaciyay marka wuxuu sii raaciyey adigoo bilcaan wuxuu yidhi ugub ah oo beledka noo joogo bilcaan marka waa dumarkii adigoo bilcaan oo guriga noo joogo guriga noo joogo haye ama ha yani beledka noo joogo beledka noo joogo ha sax wuxuu yidhi inaad baaq bulaalo u dirtaa inaad baaq bulaalo u dirtaa ha yani wuxuu yidhi waa burhaan adage waa burhaan adag inaad baaq yani wuxuu yidhi bulaalo u dirtaa waa burhaan adage burhaan adag baa ku haysto hawshaasi hawl aan fahanay ma aho waa hawl adag ma garad wuxuu yidhi ammaantan aad bantooqdiyo halkaad bahasha gaarsiisay meel dheer ba gaarsiisay ha si fiican ammaantan aad bantooqday ama waxay sii daysay bantooqday waa yani burqaday ha iyo halkaad bahasha gaarsiisay wuxuu yidhi biyadiid ayaan nagu ridiyo ama biyadiid ayay nagu ridiyo biyadiid bay nagu riday ha waan ka biyadiidnay ahaan baaritaan badane marka in badan baareen way biyadiideen waan biyadiidnay ma socon kare waa sulugnay waa sulugay sababtu dee qaafiyada uga leexay taas inay tahayna laga yaabo oo dee inuu gabadhaas xoogaa muxuu ahaayey sulug u sulugay darteed ereyga ay ku bilawday ku khilaafay inuu uga wareegaybo laga yaabo sax soo waa garan aada weyn taasina dee waxaa ka fahanay inuu gundhigiisa gabayga yahay in gabadhu meeshay yani ay tiri gayaankaygaa jiro laakiin gabayga markaa gayaan ma noqon karo ma noqon karo ma noqon karo haye dhaliil wi kan waa dhaliil dhaliil gabayga dhaliil haye gabaygan qaybta dhaliilka waa dhaliil yaa ilaahi yaqaan ko waayo hadda inta wiilkaada inta uu hadda soo sheegay haye dhaliil uu gabadh usoo jeedinayay unbay ahayd ko marka dee xaraf uu ku socdayna wuu garan maro xarafkii gayaan buu gabayga ahaa marka gabaygan asaga marka dhaliil buu noqonayaa marka waxaa la yidhahdaa baaq bal asaga marka baaq buu noqonaya uu gabadh u diray maadaama uu bacya ko bacda ka raaca leedahay maxaa noogu xigay marka ugu dambeyn ereyga uu kusoo xiray ama yani muxuu aha meesha uu kusoo xiray ayaa waxay ahayd badriyoy wuxuu yidhi bari iyo galbeed iyo adoon buuro kala yaahdin ama buuro kala haybin si fiican marka waa gabadhii wuxuu la hadlayaa nimco weli la hadlayaa weli gabadhii mudaba taagan yahay uu leeyahay bari iyo galbeed iyo adoon buuro kala haybin ha meelo kale aan aadin ayay baanansi kula dhasheen iyo boqorro joogaane ama boqorro buuxaane waa sax taas wiilal kula dhashay oo sharaf lahoo baalki ah iyo boqorre ah walaalay buuxaane waa sax halkanaad baraariyo ka heli wuxuu yidhi halkanaad baraariyo ka heli qoys barwaaqo ah halkanaad baraariyo ka heli qoys barwaaqo ah qoys barwaaqo ah halkan aad joogto ba waxaad raadinaysaba yaad ka helaysaa aada weyn wuxuu yidhi bandarkeenna noo joog oo badraay baadiyaha tuur iska tuur waxaas hoyoy bandarkeenna noo joog oo badraay baadiyaha tuur ariga kusoo xidhina kaas ayuu ahaa horta bandar aniga waxaan u aqaana garan haye markii geedkan laadhowga la ciyaarayo ko mise laadhowga ma horta mise turub ahaa laadhowga waar balaayo ahay bandarkaadaad joogaysaa mogta haye haddaa bandarka ka tagto waa lagu dili ko waa inaad ilaalsataa haye marka hadda wuxuu yidhi goobtan iyada ay noo joog hanaga tegin ha tegin oo yani baadiyaha tuur isagoo ku tilmaamay halkii ay beegsatay gabadhu inay meel miita inay meel miyi tahay oo magaalada aysan joogin oo hoog uu ka dhacay ma garat si fiican marka waxaan dhihi karnaa bahashu kowdeedii iyo labadeedii way yar toosneed hadda marka hadda xilliga waxaa la galay marka khalkhalka dhowr cillo ayaa gabayga saddexaad ku jirto oo midda koowaad ah inuu gabaygii ga uu ka leexday oo ba uu galay aada weyn tan saddexaad oo ah xoogaa caraatan ah tan labaad oo ah xoogaa caraatan ah inay meesha ku jirto muxuu ahaayey oo gabadhii uu ku durahayo meeshii ay dalbatay inay tahay meel hawdo dee muxuu ahaayey dadiba joogin ama ha miyi uu ku tilmaamay marka meesha koowaad ee gabayga xanafta uu ka bilaabay ayaa halkana sax ha marka tikawiyada ka dambeeya iyaga laftooda sidan iyo si ka daran in noqdaan ma laga yaaba inay hagaagaanna waa laga yaabaa iyaga lafta insha allah baan kusoo gudbin doonaa waad mahadsantihiin sida wanaagsan ee aad inoo daawanaysaan sheer dhaha muuqaalka sii shargareeya gareeya inta waan isku ogni aada weyn